لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد sidoo kale waxaan guul ku gaaraynaa quraankaas iyo sunnada nabigeena sallallahu alayhi wasallam anagoo qaadana ma ahan quraanka akhrinta saan u sheegnay tafsiirka la dhageysto waa tan hadda maanta munaasabada aan u sheegnay sheekh khayr allah siiyo tafsiirka uu duubay iyo culimadii ka horeysay ay duubeen mid walba ka soo qaado xigmad kulli quraanka dhageyso tafsiirka dhageyso waliba sheekha wuxuu sameeyay waa fududeeyay waxa loogu soo diray dadka qaar kood wuxuu noogu soo diray dad badanba WhatsApp تفسير القرآن هذا الجو واتساب كاغا ايات فرنيسا شيخ محمد بخاري waxaad ka helaysaa tafsiirkii oo dhan marka insha Allah taala Allah naga dhigo quraanka dhageysta ee ku amal fala ee qaata sunnada nabiga qaata ee ku amal fala waxaan ka gafnay Allah naga cafiyo intaan ka toosin Allah naga thabaabiyo kuwa qaata oo dhageysta oo ku amal falna Allah naga dhigo wixii akhdaa naga dhacay gaf naga dhacay am lisaan am sabq lisaan ama nahwiyan iga dhacayna ilaahay waxa weydiisanaa inuu ilaahay naga cafiyo إن شاء الله تعالى هذا نحن كوريجنا يا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أجر يا حسنات على سوق مثلا الله كاسيو وعدك يوانا ذا أنك أنا كوي كعمل فلا الله نقدقه وحن ربا إنت أنا أوجد بين ويرستا مرتدا يا معلمين تا يا والدين تكسوا قيب قال مناسبة دان آت أقيمها بدن إن وحير كشياغنو الشيخ محمد بخاري يددال كديرات كا يكون بحيي إنه لما يستروا تفسير كقرآن كريم كا سيد الله سبحانه الشيخ محمد بخاري وحكى قيب قاتا سيد الله لسيلها تربية عرورتا مدرسة وحكى برتا سيد هرد يكون شاقة وحكى قرأ لببو أو معركتي تربية عقيدة عرورتا لقول لسيو عرورتا دي أي تربية عقيدة وكلمتو naftooda iyo naftaada midna waxba uguma yaalaan marka taas soo ka duulaya wuxuu sameeyay labadaas kitaab oo midna Carabiga ku qoran yahay midna Ingiriisiga ku qoran yahay oo wax badan ka saaciday madrasadan sidoo kale to Sheikh Maxamed Bukhari sanad maalmo dhiman ayuu ku soo gabagabeeyay 14 boqolka quraanka tafsiirka oo ka kooban 340 xalqo waa dareemi kartaan qof qurbaha ku nool qaasatan wadankan
waqtiga uu hayo iyo sida uu maaragtay juhdi intaas leegintu u geliyay wax sanad ka yar uu ugu dhamayn karo wax sahlan maahan sidoo kale to Sheekh Maxamed Buqaari rabadaankii oo dhan wuxuu bixinayay casharo ku taxalluqa rabadaanka iyo maaragtay sidii maaragtay baalka la yiraahdo bulshada uga faa'iideysan lahayd wuxuu ka akhrinayay Somali Channel sidoo kale to Kalsan TV oo ayadana sidoo kale tafsiirka Quraanka Kariimka uu ka waday sheekhu intaas kaliya kuma koobin bulshadu waxay u badnayd sanadihii u dambeeyay social media halka saaxiib baan ku nahay oo maaragtay in badan ayuu casharo joogto ah ka bixiya tafsiirka Quraanka ah markuu TV-ga ka baxo TV-ga iyo maaragtay iyo meelaha kale lagu talagalay kaliya kuma koobe Facebook uu soo dhigaa si live uu Facebook uga soo galaa wuxuu la share gareeyaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed tafsiirka Quraanka kaliya ma ahane casharo kale oo taxana ah ayuu ka bixiyaa social media-ha waa dhinaca dhalinyaradana kamid ah culimadiina kamid ah taasna uga mahad celinayna ayadana waxaan rabaa ugu horeyn inaan u yeero oo maanta halkan jooga shakhsi asna bulshada Soomaaliyeed aan malaynayaa macna Abdullah hadii uu joogo runtii farxad weyn ay tahay maanta gogoshaan oo kale inaa imaado oo khayriga ah runtii waxay kamid tahay guulaha ugu fiican marka la isugu yeero ugu qeyrka badan qof uu ku soo cararayo Sheekh Maxamed Buqaari ila ajra ka siiyo walaalkay sigad iyo Sheekh Daawud sidoo kale in macnaha cashar la soo diyaariyo isla markaasna ma taqaana television laga soo gudbiyo hore aan soo arkay ilaa 4 sano 5 sano television cashar ka bixinay oo computer ku saabsanaa oo Quraanka ahayn marka waa dareemi karaa macnaha shaqada iyo juhdiga la gelinayo in walaalkay Sheekh Maxamed Buqaari marka hada sheekh leeyahay maanta oo dhan dadka waxay maleynayaan in weyn yahay laakiin wiilka aad ku yar qurux badan waay maasha Allah ajra siiyo maxaan ku raada waa dareemi karaa 114 in hal sano gudaheeda lagu soo dhameeyo waxay juhdi aad u fara badan أنا أكون دعينا إن شاء الله إلى أجر كاسيو معلمين تذي إلى أجر كاسيو والدين تكسو برباري على أجر كاسيو أنا إله هو حفظه وحنا نمي كنا متقانا وحنكون جرنا عسري آد قصارى لو جسوجين ما حنكون هذا قفك إله بتبادي يعني دمعا كبتبادي كراية وحنكون نقول آد في النبضان وذكينا وكسو عرنا قحوتيا ماشان كنا هاي هذا المارة الشيخنا وكلنا هلنا وقرآن كإنه بالله ودميه ومعناها ما أنت ملايين قد أصوماليا وهوين كجر عروق كجرته مالك لدون جوان قريها وجوجيو runtii wax sahlan ma ahan shaqo kale raacan lahaa meel kale ka bixi lahaa laakiin wuxuu u taagan yahay bulshadiisii mataqaana inay fidnada maanta jirto ay ka badbaado annaga xujo nagu tahay markii quraanka aan dhageysano oo aan ku camal fali weyno waxa habeen kasta arbaca arkaysa dadna kitaabada jeebka ugu jiro oo subax u sii socdo haddana quraanka waxba aan ka kasayn macnihiisa aan garanayn marka taalafka dambi kugu noqon kara quraanku waa in aan ku dhaqannaa inuu noqdo nolosheena qayb kamid ah waa macnaha xafidnaa oo aan dhoornaa aan ku dhaqannaa muddo hadda ilaa 18 sano kala istaal ka shaqeynaa meelaha aan ka fogeyn dhaqaatiir badan asla shaqeynaa ku ugu fiican ugu sareey maanta adduunka waa ku quraanka xafidsan ku diintooda jecel macnaha ma aha qofka markii mataqaana uu sheekh uu yahay qof kaliya kitaabka dhigo ama kitaabka bartakaliya oo aan loo malayn mataqaana in meel lagu gaari karin fikirka aqabna taa kaliya way sheekh inuu misalka joogo kaliya ama ilmaha inuu quraanka u baro kuwa wadanka ingiriiska ninka ugu fiican maanta ee wadnaha qalaya ugu qaalisan waa asla shaqeynaa كتابكاس وجعله صلاة أساء جورة أساء تجيناي أساء كتابك أقرناي ما له يبرنا شيء كيسنا حج كورا حج كان تقول هاي ما ده أحيرنا مركز له كوانا كبحصدي إن يسوي عن تلفونك حدا ودمي طبعا كمان وضع الحج كأنجلي تلفون واحد يسوي كر مجرم أساء استالك أقصر أو ديركتور كأ قيبت ودنا محو إسكي إلالي إن لا صوّع عبادي سلقة فرقلي مركوا دريمي كتاب ماشي قرآن قفك وجارسيناي مل في عنو جارسينايا وحن رجين دونا أنا متقانا محن كل هذا أنا إذا ما تودك كوريزن تسالوين وشيخ وياه إن القرآن كبرن كران معناها محن كل بلوشة أسيفة ذيان سيد الله كيسيد وشيخ صحواي سكولا إفرن دم عن آيتي أو دقة أردد معناها ماشي وحكبرت وقفي عولي وكو قرآن كود يقان مركز دا عروتين كود ذا القرآن كود حافظان وحين قلنا كو الدنيا ذا كل يبانو annagana ajraan ku helno macnaha waa dareemi kartaa marka qofka uu dhinto saddex shay kaliya ay raacid Soomaha oo macnaha amal saalix inuu ka tagay awlaad u soo duceysay sadaqa jaariya marka hadii awlaadeena quraan kula dadaalno maxay xasanayaan in waalidka ugu yaraan u soo duceeyaan waxa aaminsanahay maanta culum badan inay meesha imaan doonto oo wax fiican wanaag badan ka hadli doonto marka waxa waqti badan kama sii qaadan doono culumada jeclaan lahayn waqti aan siyaasadtiin insha Allah ta'ala jira wakiil ka socda Kalsan TV oo ah
halka fududaysay in qur'aankan aad maantay gabangabadiisii inta ugu nimid dadkii fududeeyay ka mid ah wakiilka Kalson TV ka socda Faysal Miicaad ayaan sharaf bay tahay anigoo ku hadlaaya magaca Kalson wakiilka ka ah inaan maanta idin kala soo qayb galno xafladan aw saaxiibkay Sheekh Bukhari kaalinteeda iyo mugeeda iyo miisaankeeda intaba u lahaa man yuridihi Allahu bihi khayran yuwaffiquhu fi diin qofka ilaahay khayr hawlo doono lacag ma siiyo hanti ma siiyo laakiin diinka ayuu waafajiyaa ilaahay waxaan uga barayaa Sheekh Bukhari iyo inta ku xidhan ee imaamka masjidkan aw kow ka yahay in aw miisaanka xasanaadkiisa waqtigii badnaa ee uu galiyay in aw tasfiirka aw gaarsiiyo aw waliba ku gaarsiiyo casrigan hadda aynu joogno oo muhiim oo dadku ay ku baraarugsan yihiin waxa loo yaqaano social media dabcan dad weyn bay wadanahay meeshaynu wada joognaa masaajidkeenu joognaa kuwa Soomaaliya wax ku soo bartay iyo kuwa halkan ku bartay inta waynu isku jirnaa laakiin maanta meesha ay sartu ka qurusantahay waxa weeye in aynu helo wasiilada ugu wanaagsan aynu wax u gudbin karno qaabka wax u gudbin karna waxa weeye tamaanta hata taaganaya maxaa ama qaabkee ayaan u hanan karaa waxa ugu khayrka badan ee la gudbiyaa waxa weeye waa kalaamullaahi wa sunnatu rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya magaca Kalson kaalinta lixaad kale ee mutadawacnimada leh way qofku waxa uu shaqaystaa yaani la ajli inuu adduunkan wax ku helo laakiin sida culimadii weynaad halka ay halkan ka sheegayeen qofka marka uu dhinto saddex umar raaco inuu ka wada qabnaa xadiiska rasuulka kaleey salaam la shaka fiih in waalid aad hesho in amal saalix aad hesho iyo tii saddexaad cilmi aad dadka uga tagto anfaca Sheekh Bukhari Allah raali ka noqdo Allah miisaankiisa xasanaadka u buuxiyo waxaan filayaa in badan oo inaga mida inuu maanta tusaale u yahay cilmiga oo aad faafisaa balaghu anni walaw aay rasuulku la hal ereyna iga gaarsiy Umar bin Khattab waxa laga hayaa inuu yiri man allamani harfan kuntu lahu abdan adoonnimada waqtiga hore asxaabada waxa ahayd wax laga faano macna in qofku adoon noqdo saxaabada iyo rasuulkuna waa kii tirtiray ee la soo gaaray in la xoreeyo Abu Bakar buu ahaa ninkii hantidiisa ugu badan ku bixin jiray inuu ku xoreeyo dadka muslimiinta marka ayagu gadaal ka soo islaama fadliga cilmiga uu leeyahayna inta culimadii waaweyneed ayaa halkan joogta mar rabo inaan aad ugu dheeraado laakiin waxaan idinka iyo nafteena iyo nafta culimada iyo nafta ubadkeenaba aanu ku tirtirsiinayna dhamaanteen waalida ayaynu wadanahay waynu ognahay xanuunka inahaya aniga iyo adiga dib inama hayso in inagu filan iyo aqal inagu filan inta baynu qabnaa laakiin waxa weeye dibta inahaysay ubadkeenan meesha jooga sidaynu uga badbaadinaa iskuul buu joogaa asxaab buu leeyahay wiil haduu yahay iyo gabadh haduu yahay xanuunka inoogu weyn marka waxa weeye kayfiyada ugu weyn ee ubadkeena ee maanta qurbaha jooga ee la saaxiibka dadka islaamka ahayn sidaynu uga badbaadin karaa culimada talada kaliya u soo jeedinay waxa weeye khaasatan waliba aan macallimiinta quraanka ee hadda anigu waalid baan ahay gabadheedu ugu weyn ma sha Allah waa 17 jir quraanka way dhameysay waa xaafidad weeye laakiin marka qaar waxa aan dareemo xanuunka yahay waxa weeye wasiiladii anigu markaan baranay quraanka aan soo maray iyadu ma martay waa may weeye waan dadaalaynaa ka waalid ahaan waajibaadkii iyo mas'uuliyaddeena saareed waynu gudanaynaa laakiin markasta laakiin waxa jira in aanay sidii la rabay aanay u hananayn in ilmihii taswiirkii quraankii oo duuduuban loo dhigayo macnaheedu guud aanu ilmihii fahansanayn waxa laga yaabaa inuu halka u dhaafsanayn laakiin aw xafido quraankii marka culimada ayagoo iga raali waxaan ku tirtirsiinayaa quraankii isagoo duuduuban ilmihii ha u dhigina laakiin fadlan ahadiista ugu dara taswiirka ugu dara si ay macnawiyan ilmihii quraankii ha u galo isagoo maskaxdiisu marka ha buuxdana suuqa u socdo in qof la dhiso ama gabadh yar intuu xijaab u xidho ay labisanto aasaarta islaamka ay ka muuqata waxa ka qurux badan ilmaha maskaxiyan inaad dhisto oo marka uu suuqa socdo kaliya uu yahay qof buuxa oo caalima oonan jidka laga leexin karin waan ku dheereeyay aad baan soo gaabinayaa waana u mahadnaqayaa sheekhaygii iyo intaan dadka kale u gudbin inaan u waco saaxiibka Sheekh Maxamed Bukhari oo ah waa wariye Maxamed Cadaawi xafladan inaan ka qayb galo farxad weyn ay tahay dad badan oo iga aqoon badan oo iga waay aragsanaa jooga laakiin sababta la iisiyo waxay tahay
maadaama aasaaskii xafladdan aan goobjoog ahaa gunaanadkeedana maanta aan goobjoog ahay inaan ka iraado kelmateen kooban oo ku aadan marxaladihii kala duwanaa ee munaasabadda maanta u dabaaldegeen ay soo martay marka koowaad waxaan soo xasuusanayaa qalinjabinteedii qur-aanka kariimka anoo yar ma jiran xaflad noocan oo kalaa la ii sameeyey laakiin farxadda qofka qur-aanka markaa dhammeeyey ayaa dareemi karaa marka la yidhaahdo maanta qur-aankii aa dhammaysay oo la yidhaahdo muxuu ahaa macallinkii aa ka xoroobaysaa ardaynimada waa naqaanaa marxalado badanna la soo maraa ardayga asagoo ku qanacsanayn mararka qaar waxbarashada faa'iiday u tahay laakiin somehow fasax uu ka jecel yahay inuu waxbarto marka waxaa dareemi karaa qur-aanka markuu qofka dhammeeyey farxadda sheekh maxamed bukhaari maanta uu dareemayo ayaan dareemi karaa farxaddaasaan la qaybsanayaa tafsiirkan markuu bilaabayey muddo sanad ku dhow ayaan wadnay wallaahi marxaladda uu shiiqu u soo maray waa mid ilaahu og yahay dareemi karana aniga especially farxadda maanta uu dareemi karo sababtoo ah meesha barnaamijka aan ka duuwayna waxay telefishinka kalsan shiiqa heer waxay danta ku kalaftay inuu erida u soo dego asagoon meesha degneen oo xaafad ka agdhow telefishinka uu soo dego si uu fursad ugu helo inuu ka dhabeeyo go-aankiisa ah 114kaas qur-aanka kariimka uu go-aansaday inuu akhriyo waxaan xasuustaa in xilliyada qaar markaan shaqada aan ka baxayno qofka ugu dambeeyo mararka qaar anoo ah xafiiska markaan xiraayo inaan idhaahdo haye waan kuu sii duubayaa intaan kaamarada u aadiyo qalabkii wixii dhan aan u hagaajiyo nololkiisa kalarkii aan ka saxo muuqaalkiisa wixii dhan aan hagaajiyo inaan idhaahdo haye rikoor aan kuu taabanayaa iska sii wad intaad wadi karto markaasaa waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu ku gaaro saq dhexe habeenkii marmar waaga ugu bari jiray meesha asagoo dhowr xalqadood duubaya dulqaadka intaas la eg ayuu u soo maray waxaa kaaga sii daran waxyaaba wax lagu duubayo waa aalad mararka qaar imaajin adoo caawoo dhan fadhiyey islaheed 10 aad duubaysay 5 10 6 10 aad ku xisaabtamaysay inaad duubto oo kiiba 40 daqiiqo ah markuu waaga bariyo markaa soo kacdo aaladda wax ku duubaysay cillad darteed ama ay buuxsanto ama ay dhaqaaq weyda ka war xalay dhan aad wax akhrinaysid qofka markaa asaa dareemi karaa xanuunkeeda dhowr jeer ay ku dhacday mar maaha labo maaha ilaa aalad waa la iskuma hadleen karo xilliyada uu sababta saa u sameynayaan waxay ahayd inuu dhaqso boobsiiyo uu arrintaa uu ka miro dheliyo sababto hadduu ka soo tago yiraa maanta hafana waran duubaya beriyan ku soo noqonaya waqti badan ku qaadanaysaa laakiin waa inuu jilbaha u xirtaa si ugu miro dheliyo hadafkiisa ah dhammaynta 114ka qur-aanka kariimka ah waa in marka waqti badan uu geliyaa iyadoo lacag lagu siinaynin iyadoo aanay jirin mararka qaar xataa cid galaas biyo u soo qabanayso 10 koowaad markuu dhammeeyo intuu ku biyo soo shubto ku soo noqon hadan bartii u fariisanaya duubis kaliya kuma ekeen wuxuu waa 10daas qur-aanka kariimka 114ka qur-aanka kariimka ninka edit gareeyay buu ahaa asaa edit gareystay cidna uma edit gareeyay waa nin editingka ku fiican bartay waxaas oo dhan markuu iska dhisay uu go'aansaday in arrintaas sameeyo qof wax u sameeyay ma jirin marka qaar laga yaabo inuu kiraantu ku imaado ku warniyo waxa ay tus waa tusaysaa markii nin maskax fudud ma sha Allah wixiisa muxuu ahaa saasoo ku dhameeyay marka kama harin anay dhowr jeer ugu dhacday marka inta kaala wax iska sameeyaan siraado kaliga wax iska doob marmar dadka qabsan kartaa farsamayaqaanka ka maqan adoo wixii duubaya ka istaagay marka mar labaad soo kacdo hadana aad ku soo noqoto warkii oo maanta dhan akhrisay marka hadana soo kacdo aad tiraado wixii aan doomin meesha ugu imaato confuse kugu dhacay madax xanuun ma duubi kartid marka qaar waxa asleedaa niyo xitaa rafaadka laakiin asaga uu u madax adeegay una kamera dhaliyay dhowr habeenay ku dhacday habeen dhan intuu duubay subax markuu arkay wixii inay doomin hadana dib u celiyay marka qaar soo dhafarsan ramadaantii ma baseexan jireenba habeenkii oo dhan halkaas uu duubi jiray marka ajir xasan la soo koobi karaan Allah ka siiyo nin aad u dadaalay waa ma sha Allah dhalinyaro ah fahamsan muxuu ahaa muhiimadda ay leedahay quraanka kariimka duubistan kaliya leen uma soo marine wada dheer u soo maray barashada quraanka kariimka laga soo bilaabo Soomaaliya dhalinyaronimadiisa yaraantiisa ilaa Yemen jaamacadiisa uu soo maray
soomaalideena maasha allah aad u maskax furannahay dadka markaan jaamacadaha kala qayb galno waxyaabo badan aan kaga horeynaa maxaa uu sababa barashada quraanka kariimka qofku markuu quraanka kariimka uu yaqaano wax badan oo fudud sheekh maxamed bukhaari magaciisa ka garanaysan bukhaari in lagu sameeyay ma ahan magac la iska bixiyay naaneestaas waxay ahayd naanees uu ku muteestay kutubka bukhaarina xifdisan waay dadka soomaalida inay aad u maskax fudud yihiin waxaa ka garanaysaan naxwahay ku subcinayaan qof naxwo ku subcinaya maaratan ajnabi ma jiro naxwahay ku subcinayaan marka heerkaas qof ka soo bilooway oo darajada soo gaaray ilaa iyo muxuu ahaa maanta farxadiisa asaga dareemi karo annagana waa la dareemaynaa marka ma aha sheekh maxamed bukhaari qof aan halkan ku soo koobi karo marxaladii kala duwan oo soo maray markuu dhameeyay quraanka kariimka waliba intuusan dhameynin waxaan ka mid ahaa rag badan ay igala shaqeynayay laakiin qofkii ugu horeeyay ee saara telefishinka cashirkiisa anuu ahaa maadaama markaas aan u qaabilsanaa waxyaabaha TV ka baxay qofka manage gareynaya ahaa oo wixii hawadaas ka baxay qof control ay ahaa qofkii ugu horeeyay aan saaraan ahaa ilaa meel dhexe 210 aan xasuustaa iyo 36 meelahaas rag badan saaxiibada iga dambeeyay laakiin muddadaas casharada inta la eg qofkii hawada ka sii deynay anuu ahaa oo marna dhinaca duubis kala qayb qaadanayay sideesmadoona kala qayb qaadanayay isaguna kaliya iguma fasaxine markasta qadku igu jiray casharka markaan saaro habeenkii saqdhuxuu soo galaa uu fresh yahay subaxiina uu ku soo noqonaa may duurkii soo galay Soomaaliya barqadii uu soo galay habeenkii saqdhuxuu ku soo noqonaa intaas oo dhan wuu ila hubin jiray wuxuu kaloo sameyn jiray markuu casharka saas u dhamaado YouTube-kun hore uu kaga jiraa maalinta telefishinka uu ka baxo next saacadahaas xigo YouTube-kun uu ku jiraa marka qof ajarka inta la eg shaqeystay waaye ilaahay asagoo kale naga wada dhigo waa nahay laakiin ilaahana waafajiyo khayrka inuu ilaahay qofku waafajiyo waa anagoo dhan waa u maleynaa qof aan diinta aqoonin oo nagu yaryahay Soomaalida hadii kale waa la wada yaqaanaa ilaahay wuu waafajiyay xadiidka hadda saaxiibka Faisal noo sheegay miyuridillahu khayra bihi khayr yufaqihu fi diin ilaahay wuu wada waafajiyay laakiin amalkeedii ku dhaqankeedana laga rabo inaan ka miro dhalino oo xujo waayo quraanka laftirkiisa ma aha mid sahlan القرآن حجة لك أو عليك أما ما أنت قيام أضو حجوك ونقنا وحكولي ورنيه واي براتي محا يوعمل فلوي ذي أما أضو الدفاع وقلا وحكولي نكان أهل القرآن وهاي وهكذا مرك إله نقد وقف هو إله وافجي قرآن كريم كا مقول يرانا يو ضد بدنا يقدم بيه إن شاء الله أنت كسوق بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتين حتى وحن ويريا xildhibaan cabdi faarax jaamac inuu asna laba kalma ka marka hore aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka soo qayb galka munaasabadan aad iyo aad u qaaliga ah waxaan isleeyahay qof ilaahay rabo ayaa ilaahay ka soo qayb geliya meelaha yar oo maaragtay waa meel haddee laga helo xasanaadka badan iyo waxa ilaahay jecel yahay inaad meesha oo kale ka soo qayb gasho qayrka badan lagu hayo marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa qabanqaabiyaasha xafladda soo qabanqaabiyey isku soo duway gartay micnaha ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay siiyey aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo mahad celinayaa ka soo qayb galayaasha kale oo intii loo wacyi yimid oo ka soo qayb galay fahmayna meeshaan waxa lagu hayaa wax aad iyo aad u qaaliya yihiin waxaan kaloo mahad celinayaa sheekh maxamed oo ilaahay nasiibkiisa wanaajiyay waafajiyayna waxa aad iyo aad u fiican waalidkiisa ayaa ku ammaanan kuna qayr badan ilaha siiyo asaga ku ammaanan dadaalkiisa badan iyo wax alla wixii ku gacan siiyey inuu halkaa soo gaaro asagana aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa
ووهم بلينا وحنا رجينا إلهي إذنكي ملكس ووين إنه سي جاري الدونه صور اللي يراه ضو هلك سو جاري نصيب في عم بوليه هي ورجينا أيضا waxaan kaloo leeyahay odayaashu waxay la soo kulmeenba waa soo gudbeen marxaladii inkastoo hadda laftigeeda laga rabo laakiin dhalinyarada shimaxad wuxuu noqonayaa ku dasho wanaagsan in dhalinyaradu tartan gasho oo diinta barato oo faafiso wuxuu u yahay macallin ku dasho fiican buu leeyahay ilaahay waxaan rajaynaynaa dad fara badan oo badan inay ka faa'iideystaan ku daydaan tartanna galaan waxaan kaloo dhihi lahaa warka kooban xaafadan shiiqu joogo iyo khiyaartan mataqaan xafladda ka soo qayb gashay nasiib badan bay leeyihiin waxaan rajaynaynaa in nasiibkoodii dadka oo wada gaaray mar haddii tiifiga laga sii daayay dad badan baa ka faa'iideystay dad badan aan la soconna way jiraan marka laakiin adinku u basanaysa maadaama uu shiiqi in la joogo dad waxa laga yaabaa idaacada ka arki jiray laakiin aan shiiqan iyo xaaladiis wax ka tasfiirka la dhageysta ka mid aha laakiin adinku xoogaal baa u tihiin waa ka faa'iideysateen waxba isku keen xireen dugsigii iyo quraankii iyo mataqaanaa tasfiirkii iyo shiiqi iyo xisaaba isku keen xiran marka dee nasiib fiican baad leedihiin waana ku hambalyeynaa waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii in dad fiican oo shiiqoo kale ay ka soo baxo oo aad iyo aad uga faa'iideysta annakana ilaahay ha nagu toosiyo meelaha aan joogno in ilaahay nagu liibaano nagu toosiyo diinta ilaahay waxaan isleeyahay wax ka fiican oo la barto oo mataqaanaa lagu dadaalo oo dadka la baro wax ka fiican ma jiraan marka wixii ugu wanaagsanaa oo ilaahay xaggii quraanka ka soo degay ah ka faa'iideysa wanaagsan annakana ilaahay hana waafajiyo sheekana qayr badan la siiyo inuu ku sii dadaalana waa rajaynaynaa aad iyo aad baa loogu baahan yahay aad iyo aad baa loogu baahan diinta iyo barashadeeda quraanka waa la akhriyaa laakiin macnihiisa naguma badna oo dadka waxaad moodaysaa inaad quraanka la akhriyo laakiin si fiican aan hoos loo eegin macnihiisa ama ku dhaqankiisa marka aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa annakana maanta waa ka faa'iideystay qayr badan Allah inay siiyo adinkana Allah idin kordhiyo وما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحوي يا أبوان محمود شينا إنه أصنع لبك المكير هذا. أنا وعدي إيو قرآن إيو وحول به علماء ذينا قيمها بدن أي شيكتي مبادنا إيو وقابنا يا وحرب إن المنطقة هذا عليو أنت سميسي جهدي غالقة وألاقيه لين meel kasta aad ugu faraxsanahay oo noqon doono wax ku dayasho mudan marka aniga wacdi midiin sheegayo waa la dhameeyay diinteenni wax walba culimadeeni sheekheena ilaahay sheekh maxamed bukhaari ajra ka siiyo intii musaacidiintu ahaa oo TV Kalsan iyo ay waaxid oo musaacada shakhsiya iyo jamaaciya ka geystay khayr Allah siiyo wax yar waxaan idin sheegayaa kaliya falsafi ah wallaha وزارة التربية والتعليم مركز وزارة التعليم والتربية معها مركز ورئيس الماء وحال براه تربية ده سيدي كتب شيخ وقري ومن انجليش مدنا عربي وتربية يكبر ريان الماء عاد بو ماتي هي وحكوا لو كحجة ضد كان قرآنك وما بعد القرآن قالوا باهي إني برتان نحوي وقالوا باهي صرفي إني برتان قالوا باهي بلاغة عربي إني برتان قالوا باهي أف صومالي إن لوغو شيغو انتا صدر قالوا باهي مجتمعات وين عن هاي
xigmadda meesha naloo keenay ilaahay dhul barwaaqo aana siiyey waxa naloo keenay xigmad rabbi waay dadka si kale u arkaan laakiin islaamka inaan meeshan ku qawiyeyna ayaa naloo keenay wax kale nalooma keenin laguma gaaloobaayo haddaan annagu dad fiican nahay mujtamac isku xidhan haddaan nahay ilmaheenna ilmaha ugu fiican waay tan labaad xigmadda ku jirto aan dadka oo dhan aan uga duwannahay soomaalida waxaa laga yaabaa inaan dad xun isu aragno dadka qaar oo isyasaan laakiin afrikada bari inta degan dadka ka muuqada waxaa u noqonay waxaa waaye qur'aan alkariim waa bes marka sababtaasna waxaa waaye wiilka markuu 5 sano markuu gaaro rabbi yasir walaa tucasir loo bilaabo maskaxda bani aadanka ah waa kombiyuutarka inputkii waxaa galaya qur'aan allahu akbar khamiis jumca capacitidiis waxay noqonaysaa waxay u furmaysaa si aad u ballaaran marka dadka waxaan ugu duwannahay xifdu alqur'aan wa tacliimuhu wa bas wax kale uguma duwanin waxaan ugu duwannahay matalan carabta oo dhan inay qur'aanka la baro laakiin nin albaqara ka bilaabo alif wax maala ku geeyo oo kor ka hayo nin imaam masaajidka ah dhici karta inuu jiro maka almukarama iyo bacd almasaajid fii masr laakiin waxaan uga duwannahay waxaa laga yaabaa ninka reer baadiyaha ah waa ku dheeraaday iga raalli ahaada inaan badiyo ninka reer baadiyaha oo aniga reaal tujub baan ahay markuu qur-aanka dhammeeyo geel raacayaa oo xoolo raacayaa markaa markay yimaadaan nin qur'aan aan aqoonina meesha joogaba isma dhahaan markii 5 isu yimaadaan rabbahu rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarihiin waa bilaabayaan subay geelay li jiraan markaa nin baa wuxuu yidhi waa ka leexday kisto waxaa jira soo qur-aan ma taqaanid qur-aan gorday misku toosan uu yidhi iskuma toosna mooye waa naqaana qur-aanka marka ma badinaayo ma dhammaanayo hadal dadkeenni sidaas ahaa ilmaheenna in oo af soomaaliga iyo carabiga iyo kulli maskaxdooda waa qaadaanaahuba in la isugu daro waxoo dhan oo tafsiirka la baro naxwaha la baro balaaqa la baro intaasoo dhan way qaadaa marka waxna qaban kara ma laha aad baan ugu mahadinahay intii xafladan oo muwaraqa ah oo aad u qiimo badan aan ka soo qayb galay aad u mahadinayaa sheekh aad baan ugu duceynaynaa sheekh maxamed bukhaari iyo inta mataqaanaa sheekh saciid iyo sheekh macalin daawuud intaba noo haray shiiqa iyo 2 qof oo kaleeto haatan waxa u yeerayaa cabdi xaafid oo asagoo ka socda iftan organization sheekh bukhaari kalima culimada wax walba sheegay muhiimaddu waxay tahay kalima daan Soomaalinahay aad waxaan aaminsanahay ama runta ah waxa weeye dad badan oo quraanka xaafidiina inay nagu jiraan wadamada wax la sheegaa ugu xifdinka badan inaan nahay laakiin dhinaca kale dhibka jira waxa weeye quraanka ma naga muuqda nolosheena oo macnaha nolosheena hab dhaqankeena anaha ruuxaanti kama muuqdo ani waxaan kaliya soo jeedi lahaa waxa weeye in maaragtay hab dhaqankeena in uu quraanka ama islaamku uu ka muuqdo rasuulka sallallahu waxa lagu tilmaamay inuu ahaa quraan socda akhlaaqdiisa iyo sidoo u noolaa iyo wax oo dhan ana maaragtay hadda waxyaalaha maaragtay aad nasiib darrada ka jirta waxay tahay haddaan Soomaalinahay rag ugu horreysay waxay sheegeen wadanku inuu buraaqa yahay dad hal luqad leh oo hal diin leh oo hal family ah inaan wadanahay at the same time waxa weeye waxa dhibaato jirta waxa weeye waa istilnay waa asqaxinay maxaa la yiraahdaa musuqmaasuqa waa la sheegay dadka wadamada ugu musuqmaasuq badan aan nahay waxyaalahaas oo dhan ma ahan waxyaala dadka quraanka yaqaana ay sameeyaan maahan marka dhinac waxa wanaageena ku dhigno waxaan haysano waa dad badan oo maaragtay quraanka oo xifdiyay inaan maaragtay wax wanaageena weey waxaan maaragtay aan taasi haysano awood si saarna xifdigeena aan sii badano
the same time-na in aan dhaqankeena kale maaragtay runta cadaaladda wada noolaashaha maaragtay isku dulqaadashada samirka waxyaalaha macnaha qur-aanku noo farayo dhan aan qaadano marka mar labaad waxa weeye inaan mar raba inaan ku dheereeyo allah ayaa mahad iskale maaragtay iyo dadka ka bacdina dadkii barnaamijka soo agaasimay sheekh maxamed bukhaarina waxaan leenahay maaragtay nin yaraa tahay maasha allah koleyba anigu waa dhegaystaa maaragtay waxaan leeyahay meesha ka sii wad maaragtay mustaqbal badan ayaa maaragtay hortaada yaalla koleybana waxaan kugula dardaarmi lahaa waxa weeye culummada dhexdhexaadka inuu noqdo culummadii hadda waxay noqdeen qaar bariga ah iyo qaar koonfurta ah iyo qaar ayagu isu mashquulsan oo meeshii ummadda maaragtay waxyaalaha nasiib darrada jirta oo qof walba sheegi kara waxaa ka mid a waddamo qaar ka mida dadka culummadaahi waxay waayeen hal fursad oo islaamka ku sheegaan ay waayeen soomaali haddaan nahay fursadoo dhan aan iska haysanaa maanta wax qof diinta diidaya iyo qof dowlad cuburinaysa iyo wax ma jirto laakiinse nasiib darrada jirta waxay tahay culimmadii ayagaaba iscuburinaya iyagaaba iska soo horjeeda iyagaa maaragtay wax wanaagsan maa runtii wax la raba waxaa in laga koro maaragtay garaadkeenu koro dad walaalaha wada socdo oo maaragtay in la noqdo culummadu inay wada socoto dadka maaragtay hadda soomaaliya marmo badan tagaa marka waxaan ku nidhi imisa ayaa isla ogoshihiin ayaa jirta ciidas ka badan tahay waxa lagu khilaafsan wax yar weey dilaa ka jira Soomaaliya dulmiya ka jira waxaas oo wax la wada ogyahay waxa la wada ogyahay laga wada shaqeeyo waxyaalaha yarka oo aan maaragtay isku khilaafsan yahayna wax yar weey maaragtay laga boodo aniga inta marka sheekh waxaan jeclaan lahaa waxa weeye inaad noqotid culimada maaragtay culimada isku keenta dhexdhexaadka ah dhinacaan xigin taasna waa kula dardaarmi lahaa maadaama aad maaragtay nin culimada hadda yar oo soo koray aad tahay anaha culimada geeska ah mar walba waa meel ma gaaran qof hadda aragtay xaq jir ah waliis meel ma gaaro marka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh دكتور سعيد وأثناء أن لنا هاي إنه ماركتي وقت جنا لا إلى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا سبحانه وتعالى هو الولي الحميد ونتوب إليه وهو التواب الرحيم ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين أما بعد إخوة الإيمان ورتروحان كوهم بلينا إن تكسوا قب قشان ثم يقولوا كيف قال جان حفلات سياسة إيو كو أروسية إيو رمت حفلة وحفلة قيمة إذا لا شيء كينكر أما هالمحاضرات لو سوكو بكرمان وحفلة ختم تفسير القرآن الكريم وهو قف نسيب له أيام هشام أنا ما تبغى لما عروسان لها مركي اللي يصير شيء وجوجي وحب المال لأنه نسيب كانوا كله قف كسمة بهشام مركي الدايل يما بجربه أنت حتى وحكسر الله شيء لما قيمة كرته ملائكة با مركانو كله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة يا بهلك وحال يردك مركي كل مان حفلتنا كل ختم القرآن ورديه وحكوه بودقة وحكوه ملائكة يا كونكس ملائكة بدن بعد ومجد وحاسوا ملائكة أياكو إلى الناس هذا دوفنا دعاء أما دول ودعيدك وكبد باديس سعدا إنه دع كرنا ودع كرتا وحقق قيمة بدن أنت نحريسك هو صعد يده الكتابة نحريست إلهي وحقق قيمة بدن مجرد ورنك عرارة يوب نحريست كعرارة يسبب نحريست كعرارة نحريست إلهي ننسب لها هلا قفك إلهي وجعلها أي وكسول لحية إمسك كم بهذا الجيس كمساجد كمارس بصول لحنا يعني لو ما قلنا إله بأوديس وحد صوغة إكزامبل أدو أدريس كذا عد كسمية سيسا قفك أجعش أمتي سألا صاحب كيو ما تغنى أدير كيو قولي إلهي وأدريس كإلهي قفك أجعله بسبا أوسيا ولا ما أنت هذا وقوع قلادي بركان نسيبك أسبوع عمل لين هرتوري congratulations تكلوا حويا هرتوري لبضيق واكبت سنة تكلوا حويا تشيك وحنوهم بلينا رنتي يعني وحدو قيمة بدن دعاء إذا كانوا دعاء وحوي دعاء يعني قفك القرآن كدمية وحدو قيمة بدن هل كان وحكى الله قبض حيدتك كسر بين تفسير كيسة وحويا ما يلبض من كده جيسته وحكمية تفسير تو قيمها بدن يكترونتي
ninkasayna oranaya nin caadiya ma anuu tafsiirka si fiican baan u qana waxa laga yaabaa laakiin dadka qaarkood markay garweyn ay ka waayaan arrinka sheekha ma garweyne maxaa ka dhageysanayna inay dhahan sida ma runtii waxa weeyaan tafsiir aad u qiimo badan waaye waa tafsiir rag badan oo culamaan way fadhiyaan oo dhageystay waa tafsiir muwaafaqa waxa weeyaan tafsiir runtii dad badan oo hore yani u tafsiiray ka wanaagsan tafsiirka wala nuzaki ahadan ala Allah laakiin wixii intaan ka warqabno ayaan inii sheegnaa marka horta tan waxay ka mid tahay waxyaabaha aad u qiimaha badan rasuulka markuu ka hadlayay iyo culimada markay ka hadlayeen quraanka qiimihiisa fihi khabaru ma qablakum wa naba'u ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum huwa al-fasl laysa bil-hazal man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة التردد انت كل هذه اللي نفسره قرآن كو جعلان نساء وحلو القرآن كو كجرة خبروا ما قبلكم وحين كهو الريال أخبرتس نبي آدم يغارك نبي موسى نبي عيسى أنبياء ونبا خبروا ما قبلكم تاريخ كدع ضدن قابيل هابيل قرآن كان نوشي غير حتى كون اسكو دغا البحنمada sheeganay waxba kama garanay okay markii laga sheekeynay dul qarnay fi khabaru ma qabalkum wa millions and millions wa khabaru ma ba wa naba'u ma ba'dakum waxa gadalka iimaan doonana oo inii sheegay البعث الحساب الجنة النار ملك لما كما قش قرآن كو بس كو شيغاي waxa soo dhan oo ku sugayaan quraanka ku sheegay وحكم ما بينكم وحقوا ونكسن لو دقمو وقرانك cid ka marmi kartay ma jirto dadka qaar kood xeerkan oo hebel walaad way naga daymo siyaasad baan ka hadlaynaa sheekh adiga bal ninka quraanka yaqaan iyo tafsiirka waxa la siyaasad baa laga hadlay adoo sheekh xoogaa yar bal oo quraanka siyaasadka wanaag ma jirto wax waliba quraanka ku jiraan quraanka markii laga sheekeynayay wuxuu soo dhigay quraanka 1400 sano ka hor ay soo dhigay quraanku waxa loo sheegay asxaabtii si ay ula socdaan nolosha ay leeyahay غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين والسياسة وحليل الرومان إمباير ومركز دولته أو باور كبدن وهذا كدن يتابعها دولته أو قيمها مركز أو باور كبدن أمريكا كبوس كده كجرت أي لقات كان قرآن كي بسوده وحليل أي ذا دبوت كان دونا دور سنة كبعد إن ثمان سنة وحكيها والسياسة رسولك يا أصحاب تسألوا شيء وحليها تتبع يا أوران تنور قرآنكم محو سياسات كي قرآنكم سياسات لوجود رقم ودم بقرآنك مركا وحويان قرآنكم وحويان أدون كدن وحو كل شقينا قرآنك كما بحيا قرآنكم حوليه هي توجد وحران يعني توجد عن النقون السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم عند أقول تقولين ما جرتا يوروب هذا مريكنك عند تقولين ما أقول ما جرتا قرآنك يقول رقمين سندولي يقول رقمين قرآنك مسؤولية اللي توجد وفي عنده وحلها نينك واحد وحلي وقعنته ولا وحرايا خلاص السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم قرآن كحوليه يعني لسدعين حولها الهلالي وأحل الله البيع وحرم الربا وعد إني حولها أدون كلون أي جابها كوشة بتعيد أقول ما يجرته حل السناضة حولها الله السناضة وما ينول بوح عدان كم بقول إذا هذا أوكي وحلوا لي هاي بني آدم كقرآن كحوليه ولقد كرمنا بني آدم كي يلدلين عد أورانا يستقف هالدل ما يجرته هذا نيك جورناليسته هو الدلي أدون كلنا ويدا وذا قيلناش سيلو دلي قرآن كهروش يعني اللي يدلنا قفك بني آدم كهلا قيمة ولقد كرمنا بني آدم قفك بني آدم كقيمه حتى يعني لو قدرنا نسبنا مديس ولقد كرمنا بني آدم وحلي راه بونتيفيف مجرم كان بونا كان متقن غير قراعي كان غير قصح مجران قرآن كل شيء قرآن كل حلت دجال لما رئيسهم قرآن كوهري مريكن كقرمو رئيسهم كجوجي هبل ومذوق الله ما قال إنه كن يسأل بقول يكون تميز أيو جوجي إسلام كن يأفر بقول أو سنة كار أيها وحلي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
racism halkaasuu ku joojiyey wallahi tarta mar waqtiga aad u gaaban marka awalan waxaan leeyahay marka horta tafsiirkaas yani waxaas u qiimaha badan waxaa kaloo la yiraahdaa carabtu aad buu xirban badantay waxaa la yidhi waqalla an taraa caynaaka daa laqabin ilaa wamacnaahu fii laqabi waxaa la qof naynaas lama aragtid haddii lagu laakiin haddaad naynaas aad maqashid qofkiiba ku tilmaamay hadda haddii lagu yidhaha caligabaa imaanaya ma nin dheeraa sugaysaa ay cabdicaddaa imaanaya nin madow maa sugay marka haddii lagu yidhahdo hebel bukhaari waad garan kartaa naynaasa coleyska ay leedahay alimaamu albukhaari oo ah kibaaru alculamaa ninka ku yani naynaasas qaatay automatically waad fahmi kartaa coleyska ay leedahay waxaan leeyahay marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu nagu afco quraanka haatan waxa soo gaarnay gabagabadii waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Sheikh Maxamed Bukhari oo asna kalimaadkii iyo xiritaankii halkaan nooga soo jeedin doona marka koobaad waxaan u mahad celinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo na abuuray ka bacdina noogu nicmeeyay nicmatii ugu wanaagsaneed oo islaamka ah kabacdina noogu nicmeeyay nicmooyin aan kala go' lahayn tirana aan lahayn wa aataakum min kulli maa sa'altumuuh wa in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa intaas kabacdi waxaan u mahad celinayaa dadkii hawshan soo qabanqaabiyey dadkii ka shaqeeyey kuwii hanti ku dhiibay intii ka soo qayb gashay intii kelimo ka tiri qof kasta magaceeda iyo mansibkeeda aan ugu mahad celinaynaa ilaahay nicmooyinkiisa marka kelimadii aayadda haddaan u noqdo ilaahay wuxuu leeyahay wa aataakum min kulli maa sa'altumuuh ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idin siiyey wax kasta oo aad weydiisataan xaggooda waxbuu idinka siiyey wax kasta oo aad weydiisataan ilaahay waxbuu idinka siiyey وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلهي هدنا وحو دبا دغاي hadii aad tirisaan nicmooyinka Ilaahay oo aad isku daydaan inaad tirisaan ma koobi kartaan isku day inta nicmo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku siiyay inta aad garanaysa jirkaaga kaliya oo noqo inta bini aadamku hadda ay gaareen oo Ilaahay uu baray inay qaba karaan iyo inta aysan qaba karin neeftaas yaroo sanka ka socota haddii la joojiyo cid celi karta ma jirto wadnii hadduuna istaago wax soo celi kara ma jiraan ruuxdii haddii u qaato cid soo celi karta ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala aan uga shukrinaynaa nicmooyinkiisa hanana karsiiyo inaan ficil aan ku shukrino aan hadal kaliya uusan shukrigan uusan noqon intaas kadib wixii la dhihi lahaa dadkii iga horreeyay ayaa yidhi xafladan waxa loogu talagalay waxay ahayd maadaama tafsiirka quraanku uu yahay nicmooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka bini aadamka uu waafajiyo kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah waa inaan shukriga isla wadaagno ku wada faraxno isxusiisino markastaba waanada qof kasta ayaa u baahan wadakir fa inna dhikra تنفع المؤمنين إلهي وحو له حسيسي معناه هذا ما قفك إن وحلا برا كليه قف wax kasta yaqaana wax badan yaqaana ayaa asagoo xaalad ay ku taagantahay ayuu wuxuu u imaanayaa qof kale markaasuu wixii uu haysto wada xusiisinaya markaasuu culayska ka degaya marka muuminiintu waa is xusiisinayaan shukriga iyo farxadda ayaa la is xusiisinaya aniga hadda wax badan oo casharkayga ku saabsanaa la is xusiisiyay marka waa farxadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ku farxayna nicmadaas uu na karsiiyay isla wadaagayno aan muujinayno kalaamka Ilaahay agtiisa sida uu noogu weyn yahay دكتورك iyo macallin Daawud iyo ragii hadlo dhan wariyaasha iyo odayaasha intaba dhamaantoodna hadaladii qiimaha badnaa dhiirigelinta badnaa oo ay ku hadleen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka ajarsiyo waa uga mahad celinaynaa xaqiiqada quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala markii uu qofku inta soo bilaabo uu dhameeyo akhris caadi markuu ku soo bilaabo ku dhameeyo
ayaanba la qiyaasi karin waxa uu yahay iyo macnaha uu leeyahay haddii macnihiisa la fasirana kaba sii daran. nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey afdalul acmaal maxaa acmaasha ugu fadli badan, nebigu wuxuu yidhi alxaalu lmurtaxil, yacnii qofka degay, qofka geediga ahaa ee degay haddana rartay, macnaa qofka socodka ahaa ee degay haddana socodkii meesha kasii bilaabay. markaasaa la weydiiyey rasuulka ilaahay muxuu yahay wamal xaalu lmurtaxil, muxuu yahay qofka socodka ku jiray ee degay haddana geediga bilaabay. markaasuu wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa qofka qur-aanka bilowgiisa inta ka soo bilaabo soo safray dhammeeyey, markii uu min aljinnati wannaas yidhi haddana soo bilaabay. min aljinnati wannaas markii uu yidhi qofku waa degay, safarkii uu ku soo jiray ayuu furay, markaasuu soo bilaabay. marka sidaa darteeda salafkii qayb ka mida waxay dhaqankoodu ahaa markii ay qur-aanka dhammeeyaan faatixada iyo suuratulbaqara bilowgeeda ilaa ulaa'ika humul muflixuuna ay akhrinayaan iyo labada aayadood oo suuratulbaqara u dambaysa marka waa u bilaaban yihin xadiidkii ku dhaqmayaan. marka hadhow berriya marka si toos haddana usoo bilaabayaan ama xilligii kale ugu talagaleen, laakiin si ay ugu rumoobaan alxaalu lmurtaxil ayay markay dhammeen birhabinaas faatixaday akhriyeen suuratulbaqarana waa bilaabeen. marka waa nin degay oo bilaabay. marka macnaha qur-aanka markii lagu soo safro oo lasoo fasiro wax la qiyaasi kara maan. haddana kun jeer haddaa qur-aanka fasirtid maalin kasta macno cusubaa ka imaana. culummada islaamka waxay yidhaahdaan waxaa leeraa tafsiirka waa cilmi aan bislaan, qof kastoo fasiraahay haddaan qur-aanka kitaabka qur-aanka intuu la egyahay haddaan fiirino yaraantiisa iyo tafaasiirta laga qoro culummada islaamku ka qoreen, haddii gurigan laga buuxiyo tafaasiirta kaliya ee laga qoray waxa weeye ma qaado tafaasiirta qur-aanka. waxaa laga yaabaa in oo rag ka qoreen 20 mujallad, mid ah nin ka qoray 10 mujallad, mid uu ka qoray 2 mujallad, nin soo gaabiyey, nin dheereeyey, nin kastana wax badana kasii dhiman. nin kastoo fasira qur-aanka kow ma joogo macnihiisu. qur-aanka qayba waxaa fasiri doona aakhiru zamaanka, dhacdooyinku qaybay fasirayaan, dhacdooyinka soo socda aa qur-aanka qayba fasirayaan oo la eg istaagaya. qur-aan qayb salafkii ay dul mari jireen oo ay macnaha ama macno markaas usoo baxa ku fasiri jireen si sax ah iyadoo taagan markaas la arkaya. cilmiga xadiidka tiknolojiyadda qayb fasiraysa, caafimaadka qayb fasiraya, noloshan bini aadamka ayaa qur-aanka fasiraysa. markaasay culummada islaamka waxay ku tilmaaneen waa cilmi aan bislaan tafsiirku, yacni weli raashin aan dabka saaran waa raashin wax u dhiman yihin soomaan, yacni ninka soo sharxay kama gaarin meesha uu rabay. markaasaa imaamu shaafici waxaa laga sheegay haddii ratigayga xarigiisu iga lumo qur-aankan ka dhexelaya, yacni wuxuu ka wadaa macno kasta oo aan u baahdo qur-aankan ka helaya. man lam yajid fi lqur'aani kula maa yuriid laysa bifaqiih, ama macnaha qof oo yacni qof cilmigiisu meel gaaray maa qofkii aan qur-aanka wuxuu rabo ka helin. yacni qur-aanka wax kasta oo u baahdo qofku caafimaad nolosha dhan uu ka helaya. jiimkan hadda aan aadaynaan ka helaynaa wixii keena iyo sababtii. waxaa la yidhi nin oo yurubtan joogay culummada hadda ka hadlay qur-aanka qaybo ka mid ah waxyaalaha casriga ah uu noo sheegayo. yurubtan nin ka mid oo dhakhtar ah wuxuu ku hor qortay isbitaalkiisii walaa tusrifuu ina allaha wakuluu washrabuu walaa tusrifuu, cuna oo caba hana ku xadgudbinina. ilaahay cunitaankii iyo cabitaankiina amray laakiin inaan la xadgudbin. nin oo muslinaha dhakhtarkii yimid markii uu ka baxayo arkay aayaddan maxaa meesha ugu qoratay, marka wuxuu yidhi aayadda lafdigeeda adinku idin ag yaala laakiin macnaheedu annaguna ag yaala. marka cuntadii markaa cunnay oo cabnay oo aan ku xadgudubnay, ilaahay ku xadgudbinayo maxaa noo yimid cudur, maxaa yimid cayil, waxaa yimid hebel iyo hebel iyo hebel. marka dib lacag kale hala isu geliyo, marka jiim hala aado halaysa soo caataysi. haddii sidii ay wixii u socdeen ay u soco lahaayeen, yacni ma loo baahdeen in aan iska sii ridno, inaan orodno, inaan dhibtoonno. salafkii orodkooda iyo dadaalkooda iyo hawshooda waxay cuntadana waa u miisaaneed, salaatuleylna waa lahayn. qof 12 caawa
20 daqiiqo rukuucsan 20 daqiiqo sujuudsan sujuudda iyo xibnaha iyo sidii la rabay xataa markii aan u sujuudno qofku wuxuu dareemayaa sida jirka u kala baxay laakiin adamaba sujuudnaba maxaa loogu talagalay qofku inuu gacnahan kala fogeeyo dhabarkiisa seenmo lugihii tognaadan xibnaha markii sidii la rabay loo wada sujuudo exercise qofku ku jira marka quraanka macnihiisa waxa weeye cid kastaahi waxay rabtay ka helaysaa ilaahay hana fahansiyo talooyinka la soo rag sheegayna waa qaatay inuu dhaxdhaxaad la noqdo xaqa dhaxdhaxaad lagama noqdo laakiin macnaha dadka aad la joogtaa waa dad ahlu xaq ah dadkii ahlu xaq ah waxa laga yaabaa qofku inuu xaq isxijiyo inkastoo qofku haddaad dadka ka aamustid xataa ma nabadgelaysid anu hadda intaan tiifiyada joogay dhalinyarada yani wariyaasha iyo ragga tiifiyada oo dhan saaxiibaan la ahay qof kastoo jooga tiifiga saaxiibaan la ahay haddana wadaadadii oo dhan intay wada raajeen oo casharadii dhageysteen wax yaraan niyo groupkeed marka maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka waa noo cadeeyay sunnada waa noo cadeeyay salafka waa noo cadeeyay iyadoo sidaas la ogyahay nin kasta waxaa laga yaabaa markuu qur-aanka fasirayo inuu ku fasiro si qancisa kooxdiisa lahjad gooniya nin kasta inuu ku fasiro uusan ku fasirin si xornimo ahoo sidii kutubta ay ku taallay waxaa dhacday hadda ma sheegay meesha ay ka dhacday laakiin qiso waxaa dhacday Soomaalida dhexdeeda nin sheekha kitaab akhri jiray tafsiirka markii uu akhrinayo wuxuu leeyahay aayadii uu ku yaan wuxuu leeyahay aayadan saasay la sheekh hebel iska ilaalishay sheekh hebel iska ilaalishay hal sheekh oo magaciisa oo midha qol raacsaneed uu ku badiyay nin marka siyaasi ah waliba nin xil hayo oo agaasimo ahaa waa aqaanaa ninkaas iyo sheekha labadaba waa aqaanaa tafsiirkan ku tixan wuxuu siiri sheekh waa ka tusaalayaashan caawadan kitaabka markasta ku hayee tafsiirkaas casriga ah oo waxaan cusub ku socda soo iibso maktabadii aad markuu aaday tafsiirka kitaabka ibn kathir ka soo gatay tafsiirka sheekha kaas aha habeenkii dambe markuu soo fariistay sheekhi sidii ugu miisaalinaya tusaalayaasha u soo qaadanaya waa fiir sheekhu wuxuu yiri waa ka waayay wixii waa dhowray kitaabka waa ka waayay erayadii oo dhan wuxuu ma aniga ku miisaalinaya tafsiir ibn kathir oo dhowr mujallado lacag badan soo galiyo soo qaatay oo isiri bal sheekh kala soco waa dhinta Allah naxariista ninkaas kitaabkii inta darafka ku dhow sheekhu ku dhiftay wuxuu yiri wadaadka kitaabka dhanka dhex bixi waayo tusaale kasto nolosha ku saabsan ma aad leedahay iska ilaalisha adiga miya noogu daraya macnaha marka waxa ka wadaa qolo kasta ay qolay la dirtay marka fikirkeedii ku soo gaabiyaanba walaalku sidii uu noo sheegay Cabdi Xaafid intaasoo wadan islaamka jooga dadkii culimada ah jooga iyo ducaadii aysan awood u lahayn inay ilaahay ka cabsada dadka yiraahdaan aysan jaanis u haysan annagoo wax kasta naloo ilaahay noo sahlay annaga isku mashquulsan marka dadkii adigan ka nabadgaleynba intaasoo qolaa inta ii timid wax yarniyo masuufiya tahay masalafiya tahay ma i'tisaama tahay ma ikhwaanul muslimiin tahay ila qolay yiraahdeen ninkan ugu yaraan waa ikhwaanul muslimiin isqarinaya maxaa ku falaysan qolada aan ahay anigu haddii aan wixii aan sheegayana ay xaq yihiin oo aysan diinta islaamka soo horjeedin ana cidna haysan miyana noolaa karin anigoon cidna haysan waxa aan sheegayana xaq yihiin haddaad rabtiin inaad waqti aan TV-ga barnaamij fahamka siirada leeraa ka wada ugu darnaa siirada waa meelaha la isku garaaco qolo kasta qolada rabto ku toogato marka waxa la yiri ishaag qolada aad waxa aan sheegay cidii aaminsan ku koox ahaan tafsiirka sida uu yahay siiradaas wixii meesha isku jira cidii aaminsan aan ku koox ah culimo iyo caamaba marka dadkii ayadan laga nabadgaleyn waaqic aan ku jirnana xaqiiqada waxa keenaya in aan dib ku jirno ummadda islaamka ay dib ku jiraan waa fahamka qaldan ee diinta islaamka shariicada islaamku qofka inta dib gelisay ee god ku xirtay ku jir ma dhihin wax ay saxalina ma jirto qofkii markuu dhibtoodo gaajo u dhinto baqtiga loo xalaalay Soomaan noloshii kala dhan quraanku waa tartiibiyay ganacsigii ka hadlay guurkii ka hadlay garsoorkii ka hadlay cibaadadii ka hadlay waartan kutubta fiqhiga quraanka laga soo qaato xadiidka noloshii ka hadlay ma yuridu bi khayrin faqhu fi diin cibaada laga hadlay markii cibaadada laga hadlana qofkii ilaahay la dhaqmay nolol u baahan yahay ganacsiga laga hadlay haddana waxa laga hadlay guurkii haddana waxa laga hadlay garsoorkii
waxaasoo dhan diinta islaamku way noo faahfaahisay laakiin in aan maantay aan u aragna inaan dhib ku jirno diinta ilaahayna na hortaalla waxaa keenaysa qalad culummada ka dhacaya iyo qalad dadweynaha ka dhacaya dadweynaha waxaa ka dhacaya waxa weeye haddii inteenan haddii qof kasta dhakhtar iska dhigo waa isa sumaynaynaa haddaan anigu qof daawo siiya waan sumaynaya waa dilaya marka qof kastaahay dhakhtaru noqday qof kastaahay sheekhu noqday qof kastaahay qof dhihi kara dhaqaatiir waa la wadaya ma jira hadda maanta laakiin qof kasta wuxuu yidhaa culummo waa la wadaya waa been cad weeye culummana lama wada ahan dhaqaatiirna lama wada ahan injineerna lama wada ahan aqoon la wada yahay ma jirto sheekhu wuxuu u baahan yahay bulshada inteeda kale wax taqaano sheekhu bulshada inteeda kale wax taqaano u baahan yahay waxa weeye dhakhtarku inta kale u baahan yahay injineerku inta kale u baahan yahay qof kasta waa u baahan yahay bulshada qofka kale ka maarmo ma jiro laakiin qof wada ah wax kastana ma jiraan marka aan ogaano qof kastaahay mansibka uu yahay marka uu ogaado haddana wixii ka maqanna qofkii yaqaana uu u raadsado dhib ma dhacayo hal waxaan ognahay mid yar aad taqaano oo daroogada ku jira shalay ka soo baxaya qamiisuu qaadanayaa garkii sii daysanaya sunnadii ka muuqata dhib ma leh laakiin waad weydiinaysaa sheekhow waxaas ka waran xaaraan waxaas ka waran xalaal waxaas ka waran bidco waxaas ka waran shirki waxaa leedahay hadda culumaana wareerisay sheekh culumadii hore ka mid ahaa waxaa laga sheegay sheekhow waana wareerisayna maad heshiisiino qolaba wax markaasuu wuxuu yidhi idinma wareerine rag adinka caamada culummada inkugu jira annaga culummadana caamada noogu jira idin wareeriyey marka dadkii qofku hadduu dhakhtaraan ahayn aado GP-ga meel ahayn ay ahaado ee dukaamada cuntada uu daawada u doonto hadduu qofku cilmiga u doonto qofaan aqoon qofku asaga is wareeriyey marka culummaduna inay ummadda u naxariistaan oo sida la sheegay waxa la isku waafaqsan yahay wax kasta ka badan wadankan joogno muslina jooga yahuuda joogta kirishtaana jooga balaayo wax kasta oo jooga haddana isma aragna warba kama bahaynaba diinta islaamku marka ma keenayso bal u fiirsa salafkii a'imadii islaamka masaajid la isku laayo salaad lagu wada tuka waayay dad masaajidda isku wada tuka waayay ma jirin misay hortiisa qof dadka ka jidaya soo bax leey war qofkan masjidka soo aada ha ku mashquulin waaba yimid midaan masjidka soo aadina joogay aad hadduu qofku masjid aaday ku farax hadheen kayga muxuu imaa waay maxay la qofka inuu tukado way kan dadka jooga maalinka qiyaamada wax laga weydiinaya mase kuwaas dadka jooga wax laga weydiinaya qofkii masjidka aaday ha ku mashquulin masjidku raba aad qofku marba haduu ilaahay subhanahu wa ta'ala u tukanayo hadaa aragtid wax ka qaldan oo cibaada ka sax laakiin dadka inay diinta nacaan inay wadaadada nacaan hadda qof soo gala social media ama soo gala media dadku boqolkiiba 90 wax ugu nacab yihiin wadaad maxaa yeelay wadaad kale ku dhagan yahay ayaga isgaarsiiyay wadaad kale ku dhagan yahay ama waaqic taga horu ka hadlaya nolosha bini aadamka oo jirtaba kama warhayo marka culimaduna waxa ka qaldan ha isa saxan yeesan isla saxnaan hadda isla saxnaatid anigu maalin kasta waxa iga qaldan waxaan u baahanahay inuu iga saxo wariyo waxaan uga baahanahay in bulshadu iga saxdo waa inaan Soomaalida dhaqanka aan leenahay waxa weeye markii maanta nala wacdinayo dadka kalaan ka fiirinaya maxay dhihi jireen maroodigu takarta saaran uma jeedo mid kan kala saaran u jeeda haddii wixii la sheego marka ilaa ittaqullaha la leeyahay aad tiraahdo war imisa ka qaldan adigu aad isa saxdid waxba saxi kartaa marka yaanan ku dheerayn waa ku mahadsantiin ka soo qayb galka xafladan